kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen culimada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ujeedadiisu ahayd duco iyo Qur'aan akhris si Ilaahay looga baryo in masiibadan cudurka coronavirus ee dunida aafeeyay uu ummadda Soomaaliyeed uga badbaadiyo. kulankan waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cismaan Aadan Dhuubow kaasi oo dhawaan wasaaraddiisu ay baaq u jeedisay culimada Soomaaliyeed baaqaasi oo ku saabsanaa sidii culimadu ay u samayn lahaayeen kulamo duco ah oo Alle looga baryayo in masiibadan uu ka badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. wasiir Dhuubow ayaa sidoo kale culimada u qaybiyay kutubada Quraanka Kariimka si loo sii wado howlaha Qur'aan akhriska. markii Qur'aan akhriskan uu soo dhamaaday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed. wasiir Cusmaan Aadan Dhuubow wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo maanta soo booqday xaruntan oo ka socoto Qur'aan akhriska cudurka adduunka yacni cudurkan la sheegayo koronaha caalamka farbaan ku hayo inuu Ilaahayna soo gaarsiinin subxaanahu wa ta'ala. Qur'aankan waa Qur'aan Ilaahay xarigiisa lagu qabsanayo oo cudurkaas dalka looga dhaabayo waaye inuu Ilaahay Soomaaliya sad ugu darin inta muslimiina caalamka dhibaatadaas haysatan inuu Ilaahay ka qaado caalamka dhan Ilaahay ka qaado. marka wasiirka waxaan ugu mahad celinayaa soo yani booqashada uu noogu yimid Qur'aankaas akhrintiisa uu soo booqday yani aadaan ugu mahad celinaynaa. jazakallahu khayran sheekh wali soo dhaweeyay laba magac culimada iyo gobashii mashaayikhdii ajillada ahayd ee saadaadkeennii joogna kula hadlayna magacii golaha sare culimada Soomaaliyeed aan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay wasaaradda soo dhawow gobashaadi ku soo dhawow culimadaadi ku soo dhawow dadka aad mas'uulka u ahayd oo magacoodii wax ku maamuleyseen ku soo dhawow. wasiirku waa wasiirkeeni waa wasiirkeeni arrimaha diinta iyo awqaafta qaasatan annaga wasaaradii aan qaabishaneen culimo ahaan waay wuxuu dadaal dheer u galay inuu maaragtay culimada doorkeedii uu siiyo. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Aadan Dhuubow ayaa uga mahad celiyay culimada Soomaaliyeed dadaaladooda isxilqaanka ah ee ay ugu duceynayaan Allana uga baryayaan in ummadda Soomaaliyeed uu ka badbaadiyo cudurkan coronaviruska ee safmareenka ah. inagoo tashi badan la sameeyay culimada aan ku gaaray ahayd in baqashada jirta aawadeed xanuunkaas Ilaahay nooma keenay dabaysha ah inaan caruurtii dugsileeyda aan dhahno annaga aftaxan dugsi xirid ma dheen waxaan fasax in la galo fasaxaasna alla bari la galo culimadii iyo macallimiinta dugsiyadana ay qayb weyn ka qaataan sidii arinta ayada ah difaaciida loo gal lahaa difaacan wadana ay tahay kitaabka subhanahu wa ta'ala Ilaahay gacanteena saaray anagoo islaama inaan asaga u noqono aan mataqana bariyadii iyo Qur'aan akhriskii sida dhaqanka ahaa ee laga tagay dowrigan fara sariiqana wala hum yuqudun illa rahmatan minna wa mata'an ilaahi wa ilaahi muttaqun. Abdullahi Ahmed Nur, Universal TV, Muqdisho.